السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada aan idin soo koobo wararkii ugu dambeeyay ee geeyiga Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa dhinacaas iyo gobolka Awdal sida ay tilmaamayaan wararka laga helayo xuduudda ay wadaagaan Somaliland, Djibouti iyo Ethiopia boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise ayaa dhowrkii saac ee la soo dhaafay ka soo tallaabay deegaan la yiraahdo Durdur oo ka tirsan gobolka Awdal isla markaana xuduudda ku yaala waa ciidamadii hore oo la dagaalamay jiray ciidamada Canfarta ee ka dagaalama dalka Djibouti waxaana dad badan ay aaminsan yihiin intan ay ku soo aadeyso xilli dagaalka u dhaxeeya Ciisaha iyo Samaroonka uu gaaray halkii ugu sareysay haddaba dhowrkii saac ee la soo dhaafay maxay yihiin ciidamada soo gaaray magaalada Seylac muxuu yahay kulankii xalay ka dhacay magaalada Ceelgaal oo ka tirsan gobolka Awdal sida ay tilmaameen warbaahinta gudaha deegaanada Somaliland ugaaska guud ee beelaha Ciise ayaa amar ku bixiyay in guud ahaan la soo afjaro ciidanka beesha Samaroon ee dagaalka kula jira beesha Ciise tani waxay ku soo aadeysaa iyada oo 2 toddobaad ka hor ciidanka Somaliland iyo kuwa Samaroon lagu eedeeyay inay kursi u geysteen hablo Soomaaliyeed oo u dhashay beesha Ciise kuwaas oo la sheegay in la qabay labada gabdhood ee kursiga loo geystay waxaa la sheegay inay kufsadeen ku dhawaad 7 nin oo 3 ka mid ah yihiin askarta Somaliland halka inta kalena ay yihiin rag maleeshiyaad ah oo u dagaalama beesha Samaroon falkaas wuxuu ka careysiyay beesha faca weyn ee Ciise waana tan keentay in ay yiraahdaan waxaan u argudeynaa hablihii sida foosha xun loola dhamay sidaas la mid ah dad la doonayay in lagu xalliyo arrintaasi isla markaana lagu soo afjaro ayaa guul dareystay dhammaan dadaaladii xalka loogu raadinayay waxay ahaayeen kuwa la rabay in lagu baajiyo dagaal halkaasi ka dhaca laakiin sida aan hadda xogaha ku heleyno dhammaan dadaaladaasi waxay noqdeen kuwa aan rumoobin marka laga hadlayo dhacdooyinadii ugu dambeeyay halkaasi ka dhacay dagaalka u dhaxeeya beelahan walaalaha ah oo wadaaga ah ee wadadaga ee Ciise iyo Samaroon hadda waxaad moodaa inuu xuduudda ka tallaabay oo uu gaaray halka ugu sareysa taasoo ah in la beegsado dadka barbigeedada ah haween ayaa la kufsaday caruur ayaa laga gubay guryaha ay deganaayeen waana wax ka mamnuuc ah dagaalada sida inta badan lagu yaqaano sida uu sheegay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka Somaliland odayaal dhaqameed magaalada Jigjiga ka baxay habeenimada xalay ahayd ayaa saaka aroortii waxay gaareen magaalada Hargeysa si ay kulan ula qaataan madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro sidaan xogaha ku hayno isla markaana wararku ay tilmaamayaan odayaashaasi waxay rabaan in xal waara laga gaaro colaad halkaasi ka taagan kahor inta aysan la kulmin Cirro waxay la kulmi doonaan madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo beesha Samaroon ka soo jeeda waxayna kala hadli doonaan sidii xaaladda loo qaboojin lahaa isla markaana miiska wada hadalka ay ugu soo laaman lahaayeen dhinacyada saameynta ku leh colaadan muddada halkaasi ka taagan madaxweynaha Somaliland ayaa toddobaadyo ka hor u sheegay wasiirkiisa arrimaha gudaha Somaliland iyo sidoo kale taliyaha militariga Somaliland Nimcaan Gaxnuug in ay tagaan furinta isla markaana ay soo afjaraan cid walba oo lagu helo in ay ku lug leedahay dhacdooyinada halkaasi ka jira dad badan oo arrimaha la socda waxay leeyihiin haddii aan la helin xal degdeg ah oo arrinka lagu soo gabagabeeyo waxaa dhici doona wax ka fool xun wixii ay ku dhaqaaqeen ciidanka Samaroon ciidamadan hadda ka soo tallaabay sida aan warbixinta horeba idinkugu sheegay xuduudda Awdal iyo sidoo kale Salal dad badan waxay aaminsan yihiin inay hordhac u yihiin boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise kuwaas oo loo diyaarinayo inay qaadaan weeraro culus oo ka dhana ciidanka Somaliland mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Ciise oo warbaahinta kula hadlay maalinimadii shalay ahayd magaalada Heemaal wuxuu yiri dagaalka toos waxa ugu soo beeray reer Sheekh Isxaaq waa inay isdifaacdaan oo iska celisaan cid walba oo dagaalka ku soo qaaday ama waa inaad isdhiibtaan isagoo hadalkiisa dabcan uu ku soo aadayo farxumeynta gabdhaha loo geystay iyo sidoo kale dhacdooyin kale oo la xiriira in la gubay guryo ay dad rayida deganaayeen beero inta badan ay ka baxaan basasha iyo baradhadana dab la qabasiiyay xuduudda u dhaxaysa Djibouti Somaliland iyo Ethiopia hadda waxay noqotay qulqulatooyinka ugu badan ay ka soo tallaabaan waana mid keenaysa in hadda la arko in dhinacyadu ay isku tafaxiidanayaan in dagaalku uusan qaboobin bil ka hor Cabdiraxmaan Cirro ayaa la kulmay suldaanka guud ee beelaha Samaroon Suldaan Cabdirashiid Doodi wuxuuna kala hadlay sidii xal waaro laga gaari lahaa xiisadda laakiin ila wareedyo waxay tilmaameen in suldaanku uu si cad u sheegay in xilligan aysan macquul iyo munaasab toon ahayn in dagaaladaasi la soo afjiro isagoo taa bedelkeeda ku nuxnuxsaday in aysan u dulqaadan doonin dulmi uu sheegay inuu ka imaanayo dhinaca beesha Ciise
beesha ogaadeen ee degta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa laftirkeedu tiro dhowr jeer isku dayday sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaha soo laabtay laakiin siday hadda u muuqato xiisadu ma ahan mid qaboobaysa ama mid sida lagu soo afjari karo sababtoo ah dhinacyadu hawlgallada ay sameynayaan iyo hub uruursiga ayaa ku tusinaya inaysan sheekadu fara ka qodneen isla markaana balamo kale la galay si ay halkaasi dirirta uga sii socoto waxay ku soo kordhaa wadayaal waa inoo wararkeena dambe